reer Garowe iskuma cusbin dhowr jeer baa halkan imid nin deegaanka baan ahay maantana waa soo noqdayo waxaan u soo noqday inaynu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar walba aynu wada joogno marka ugu horeysa waan idinka mahadnaqaya soo dhawaysan rag iyo dumar iyo dhalinyaraba anigu musharax baan ahaa nin musharaxoo beesha ka tirsan oo beesha ka sharaxaan dhexdeeda ayaan ahaa waxaanan aaminsanaa kolleyba musharax beesha wax u qabta in beeshu ay la soo baxdo waanan aaminsanaa in laba musharax oo deegaankaa beeshu ay soo saari karto xisbiyo kala duwan baanu ku kala jirnay xisbiguna waxa weeyaanay maanta waa saddexda xisbiye maanta musharaxiintu ay ka soo baxayso laakiinse marka xaqiiqada la eego waxa weeyaanay beeshu musharaxeedu xisbigu doonaba ha ahaadee dee meel buu ku sutay oo wuxuu ku sutay waxa weeyaan waxqabadka deegaanka ee qofka looga baahan yahay anigu taasaan ayaan doonaya inaan kaga dhameeyaan kaga rumeeyo laakiinse qadarka ilaahay baa wax walba qadarka ilaahay baa wax walba ilaahay baan qadarno xaggii ilaahay baanay ka noqon ilaahay baana yidhi waxa jira waxaad khayr aad moodayso sharax iyo wax sharax oo khayr noqda ilaahay waxaanu ka baryaynaa maalintaa jimce horta inuu sharka inaga duwayna baalmariyo waxaa laygu yidhi calow maxaad musharaxiinta u kala dooratay cali aadan marka joogay baa la weydiiyey waxaan wax kale uma kala dooranne musharaxna waa musharax in badan hawsha soo wado soo tabcay nimanna waa niman goolka fuul oo iminka hawshii bilaabay qaarna galaankoodaa maran qaarna galaankoodaa wax yar ka dhimayo waxaan rabaa inaan u buuxiyo maanta yaasiin iyo siciidba in badan bay hawsha aan tartan ku wada jirnay tartankuna ceeb ma haddee waxaa laga yaabaa in badanoo maanta halkan joogta oo maanta raacsaneed siciid iyo yaasiinba inaanu maanta dee haddana aanu tartankii meel ka wada wadno oonu kubadda goolkaa ka wada dhalinayno waxaa la yidhi hadal waayeen waa guudmar kolleyba aniga halkii ugu dambaysay sallaanka halkii ugu sarraysay baan maray deedna lugtaa inta la soo qabtay ayaa la yidhi caliyow looxal maxfuudka annagunbaa tegi karnoo gaari karnee aduu sanadkan u malihina ka soo yara deg aniga waxaa runtii layla badheeray wax khayr sharciya warqaddan isku diiwaangeliye waad isu wada diiwaangeliseen soo maaha anigu warqaddan isku diiwaangeliye 2016 wataa in kaarkaygii markii la bixinayay 16 la ii soo raaciyaabeen shuruudii xisbiga waan wada buuxiyo shahaadadii xisbiga waa laysiiye waxa la musharax baad kaarkan haystay kala waxa weeyaan waa 2010 marka komishanka u shaqeyn jiray nin sharci uu ka maqnaa ma ahayn nin shuruudaha buuxin waayeen ma ahayn ama shahaadad ha noqoto ama waxay doontaba ha noqotee shuruudahaasi muddo dheer bay nagu qaateen tasdiiqinta shahaadadan loogu yara adkayd oo muddo la sugayay xildhibaankii lagu bedelay halkaygii 3 saacadood ayay qaadatay kowdii duhurnimo magacaygu liskii ugu dambeeyay komishanku soo saaray wax xog warane waa sax weeye cali iimaan xasan magacaas wallaahi baan ku dhaartay uu ku jiray sax
xisbiga kulmiye joogo markii aan aniga gudoomiye waan u tahan balyeelay صح ramadaan baa waan ka tagay صح laakiin saddexdii galabnimo wixii ka saaray intaas horta garama meeyno horta intaas waa warbixin aan siinayo waxa muhiim ah inaan daanu qaasin dhalay waan helaan qaasinkii laga tagino xildhibaanadii qaasin la soo saaro ان شاء الله ان شاء الله intaasuna haddii la ku mitadayna ما شاء الله هاي waynu isku imanaa doonaa waqtina inoo ma harin ان شاء الله haddii la wixii aan soo afgaranno hawshan halkeedii baanu ka sii wadayna